السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صور دواد دمانتين أخيار شرفت قاياه قيمة مدن نقلاص عبرت يوتيوبها هاري أوفيشيال. فضلا هدان نقول عصبتها هدان داوني سدبا هدان نوجد فضلا وحن كلنا هاي لايك سبسكرايب انت وصار نلقى waxaan ka hadlaynaa barnaamij ayamaha taagna oo dhanka Buntland qaasatan magaalada Boosaaso insha Allah billahi ta'ala soo dhawaada subscribe like ha iloobina insha Allah barnaamijkeena gudan galle magaalada Boosayaan wax ka taagnaa arrin la yaab leh in magaalada Boos loo kala qaybshay afar qaybood loo kala qaybshay maamulka dirjiray Aaransheedaan horjooga dan uu ka yahay magaalada Boosaaso waxay u qaybiyeen afar qaybood iyagoo qaybintaas soo jeeda in macna madax la isla galo oo qabaa'iladii Buntland deegaana oo Boos deegaana madax isla galaan oo la yiri qabiil oo magaaladii macna loo qaybsho qabiil meel la siiyo iyadoo Boos waxa dadka degta la yaqaano oo nin walba meel uu dego iyo meel ka soo jeedo la yaqaano inuu waxa maqlay wasiirka arrimaha gudaha dhinaca doole dadka qaarkood Boos dad baa macna koonfurka yimo baa magaalada kaga xaqle xalay u deeso qubadii abwaan gudoomiyaha gobolka waa dhageystay uu leeyahay dadka hadii mudaharaad anaga wax ma qoysayna dad argagixisa waradeero gacaliyo Buntland hadda maamulka jiray Aaransheedaan waxay wadaan isku dir qabaa'il ninka la yiraahdo Gallan ninka la yiraahdo Bashir Cabdisalaan macnaha waxa loo soo dhiibay waxaan soconay dab baa qabaaladii Buntland la isku soo dhiibay oo deegaan magaalada Boosaaso oo macnaha reer Buntland dab gooni la geliyo marka Aaransheedaan waxay wadaan waa wax aan soconayn waa waxaan u cuntamay Soomaali weyn iyo dad reer Buntland khaasatan magaalada Boosaaso magaalo kala qaybiyo oo afar qayb loo qaybiyo ka weentay waa magaalo shanta Soomaali dhan baa joogto ku sugan marka magaalo loo qaybiyo afar xaafadood way ka weentay iyo magaalo qabiil loo qaybiyo reer la siiyo marka anagoo xoojinayna mudaharaadka maanta Boos ka dhacay waxaanu codkayga ku taageeraynaa shacabweynihii maanta reer Boos ay mudaharaadka sameeyay oo arinta foosha xun maamulka Aaransheedaan macnaha kula kaceen shacabka reer Buntland khaasatan magaalada Boosaaso iyadoo macnaha la dibacsan yahay in dadkaas madax la isku geliyo oo qabiil macnaha madax la isku daro marka waxaan u leenahay shacabka Buntland aqliga ha shaqeeyo Boosaaso magaalo kala qaybsata maaha magaalo la kala xiri karo maaha magaalo khad cagaar loo sameey karo maaha magaalo nin walba sidii diwaaqi Muqdisho heedo nimo xaafad haysto oo kooxad haystay yaana Boos noqon yaana laga dhigin Boosaaso waa magaalo ummad Soomaaliyeed leedahay waa magaalo shanta Soomaali wada joogto kii koonfurka iyo kii gaarso ka yimi kii jeeki inta waxna way joogan way ka xamaashan way ka shaqeystaan guriga ku leeyihiin deegaan bay yihiin marka waxa la magaaladan sida qaabka daraad xullo wada hal joojiyo mudaharaadkii maantana wax arkay dumar fara badan oo rasaas la baxsanayo oo maantadii meel macna rasaas la dhacayo waxa la tahay wax ma yaalin marka waxa uu leenahay daniyow hawshan wax soconaysa maaha in qabaaladii soo madax la soo galiyo oo ina Buntland oo ina magaalada Boosaaso wax soconayo maaha waxaanu ka yeelayno maaha war shacabka Buntland oo tashada war aqliga ha shaqeeyo war waxaan lacag baa lagu bixiyay war waxaan hool baa lagu soo qaatay war waxaan waa mashruuc war diida war ka dhiidhiya war ka kaca war waxaan wax socona qabta maaha wax macnaha isku yimaadaan maaha marka waxaan leenahay shacabka reer Buntland waa u jeedaan ayamahan maamulkan fadhiidka Buntland horjooga dani waxyaaluhu macnaha dalka sameeyay waa u jeedaan walna hadda beeshan oo aadka u ataagayo waa u jeedaan hadda korba gudii baarlamaanka lagu xabaday oo dad far badan macnaha halkaas ku dhinteen maantana Boos wuxuu rabaa inuu dhig ka daadiyo laakiin Ilaahay baa ka dhigin alxamdulillah rabbil caalamiin marka waxaan leenahay waxyaalahan hadda la yimi maamulkan kalistariska waxyaalo aad looga xumaado way qof kasto aqli leh wuxuu ka dhidhiyo weeye marka Ilaahay idinkii biidilaahi tacaala waxaas wax soconaya maaha shacabka reer Buntland waxaas way ka soo dhargeen qabaa'il iyo qor isku taag waa laga soo gudbay xilligiisa lama joogo xilligii maskaxda leeyahay baa la jooga xilliga aqliga talilaha baa la jooga marka waxaan leenahay arinta ka dhidhiya insha Allah biidilaahi tacaala firinteena cid walba gaarsiiya asxaabta qaayaha qiimaha mudanow barnaamijka soo gaaro nin walba ha sii share gareeyo salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh aad ma mahadsantihiin